Liverpool oo waqtiga dhimashada guul taariikhi ah ka gaartay Atletico Madrid xilli Van Dijk uu kasbaday qalbiyada Reds. Liverpool ayaa guul muhiim ah ka gaartay Atletico Madrid kadib kulan xiiso iyo xamaasad lahaa oo ku dhamaaday 3-2 iyadoo Virgil van Dijk uu noqday halyey garoonka. Liverpool ayaa 2 gool oo degdeg ah heshay qeybaha ugu horeeya ee ciyaarta, balse Atletico ayaa soo laabatay ka hor qeybta labaad intaan la aadin. Qeybta labaad ayaa noqotay mid isdhaafsi ah. Reds ayaa mar kale hoggaanka la wareegtay, hase yeeshee Atletico Madrid ayaa mar kale hanjabaad ku noqotay difaaca. Ugu dambeyn, Liverpool ayaa gool dambe ku xaqiijisay guusha, iyadoo taageerayaashu si weyn u dabaaldegeen. Inkasta oo Atletico dagaal adag muujisay, haddana ma aysan jebin difaaca uu hogaaminayay Van Dijk. Dhinaca kale, Chelsea oo Champions League ku furatay guuldaro xanuun badan xilli Harry Kane uu shabaqooda gaaray 2 jeer. Chelsea ayaa guuldaro 3-1 kala kulantay Bayern Munich kulanka furitaanka wareegga kooxaha ee Champions League 2025-2026, taas oo ka dhigtay soo laabashadoodii mid ku bilaabata dhadhan qaraar. Weeraryahanka Ingiriiska ee Bayern Harry Kane ayaa 2 jeer shabaqa soo taabtay, halka Jalaba uu iska dhaliyay goolkii 3aad ee Blues dhaawacay. Cole Palmer ayaa dhaliyay goolka kaliya ee Chelsea, balse kuma filnaan inuu ka badbaadiyo natiijadan foosho xun. Kooxda uu hogaamiyo Enzo Maresca ayaan soo bandhigin ciyaar hufan, iyadoo qaladaad badan oo difaac ah ay sababeen inay guuldaro la kulmaan, inkasta oo ay mararka qaar kubadda haysteen. Rashford oo wajahaya tijaabadii ugu weyneyd tan iyo markii uu ku biiray Barcelona. Kooxda Barcelona ayaa caawa Khamiis kulan adag ku wajihi doonta Newcastle United garoonka St James Park, kulanka furitaanka wareegga koowaad ee Champions League. Kooxda Catalan ayaa rajeynaysa in xiddigooda cusub Marcus Rashford uu qaato doorka ugu weyn ee kulanka, maadaama uu hore 5 jeer gool uga dhaliyay Newcastle intii uu joogay Manchester United. 2 ka mid ahna uu ku dhaliyay garoonkan ay caawa ku ciyaarayaan. Tababaraha Jarmalka ah ee Barca Hans Flick ayaa kalsooni buuxda ka muujiyay saameynta Rashford uu ku yeelan karo kulanka, isagoo ammaanay qaab ciyaareedkiisii kulankii Valencia ee La Liga, halkaas oo uu bandhig xoogan ka sameeyay. Barcelona oo xil ciyaareedkii hore lagu reebay semifinalka Champions League ayaa ujeedkeedu yahay inay guul xoogan ku bilaabato ololahooda Yurub, iyadoo si gaar ah xoogga u saaraysa weerarka kooxda oo loo arko mid ka mid ah hubka ugu weyn ee ay ku tiirsan yihiin. Ugu dambeyntiina, koobka adduunka 2026 shaki weyn ayaa hareereeyay. Spain oo ku hanjabtay inay ka baxayso tartanka haddii Israa'iil ay u soo baxdo koobka adduunka 2026 ee ka dhici doona Mareykanka iyo Mexico. Afhayeenka xisbiga Specialist-ka Spain, Betsy Lopez, ayaa dhaliyay muran weyn kadib markii uu sheegay in ka qaybgalka Spain ee koobka